بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan allaha wadala dhammaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo fayrasyada kala duwan ee coronaviruska meel kastoo dunida aan ka joognaba waa maalinimo talaada ah labada bisha labaad 2021 cudurka coronaviruska fayrasyada kala duwan ee cusubi waxay ku faafayaan meelo badan oo dunida ka mid ah iyadoo digniinana ay jiraan dhinaca kalena loo maleeyo sida la sheegay oo ay sheegeen shirkadaha kala duwan ee dhinaca tallaaladu in tallaaladu dhammaantood ay wax ka qaban karaan marka la fiiriyo qaybahan kala duwan ee fayrasyada kii Wuhan ka Brazil kan South Africa iyo waliba kan UK marka aynu ku bilowno waa wadamada sida aadka looga arkay qaybaha kala duwan haday tahay kii Wuhan iyo hadii ay tahay ka Brazil iyo waliba kan UK ka bilowday September 2020 iyo South Africa laakiin dadaalo xoog leh ayaa jira iyo baaritaano iyo tijaabooyin dadka laga eegayo guud ahaanba qaybahaasi kala duwan sida ay yihiin walow aanay ku badnayn marka la fiiriyo sida kii Wuhan uu ugu badan yahay adduunyada xogayaha caafimaadka ee UK Matt Hancock ayaa waxa uu sheegay in la qaadanayo tallaabooyin adag oo la doonayo dadka si aad in looga eego qaybahan cusub gaar ahaan kan South Africa wararkii ugu dambeeyay qoliyaha caafimaadka England waxa ay sheegeen in la arkay ilaa iyo 105 ah kan South Africa laakiin arrinta la yaab kaliya ay tahay ilaa iyo 11 kamid in la xiriirin karo dhinaca safarada taasoo ay dhici karto dad ka yimid South Africa inay keeneen dhinaca England iyo UK laakiin marka la fiiriyo tirada kale ee 105 ka soo hartay waa tiro laga arkay gudaha taasoo la eegayo qaabka iyo sida xaalku sida uu u dhacay qoliyaha caafimaadku waxay leeyihiin marka si aad loo dadaalo iyadoo dadka loo dirayo digniino kala duwan oo ku saabsan in laga eegayo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee viruska ayaa waxa loo maleeyaa in tallaaladu ay wax ka taraan sida ay ka dhawaajinayaan professorada iyo qoliyaha caafimaadka ee guud ahaanba ragga iyo dumarka ka howlgala marka la fiiriyo kambaniyada kala duwan ee iyagu tallaalada soo saaray gaar ahaan saddexda ilaa haatan laga ogolaaday UK ee Pfizer iyo BioNTech iyo Moderna iyo AstraZeneca waxay sheegayaan in dhammaan tallaaladaasi ay yihiin kuwa iyagu wax ka qaban karaya fayrasyada kala duwan oo dhammaantood ay isu wada dhow yihiin xagga dadku marka ay qaadayaan iyo markaas sida looga hortagi karayo UK marka la fiiriyo dhinaca kala dadaalo xoog leh ayaa jiray iyadoo waliba ra'iisul wasaare Boris Johnson toddobaadkii hore dhinaca Scotland uu tagay iyadoo walibana uu ka dhawaajiyay waqtiyo kala duwan in la dadaalayo oo la eegayo qaabka iyo sida loo qaadi karo xanibaadda laakiin ay ku xiran tahay tirada soo ridashadu inay yaraato iyo tirada dhimashadu marka la fiiriyo guud ahaanba dalka qoliyaha caafimaadku waxay ka dhawaajinayaan inay laga maarmaan tahay tallaabo kasta oo lagu sahlayo arrimaha xanibaadda inay tahay laga maarmaan in laga fiirsado oo si tartiib loo qaado oo aan lagu degdegin xanibaadda iminka England ayaa waxa la sheegay inay ku eg tahay sida la qorsheeyay tan iyo 8 bisha Maarch ee 3 ee 2021 waxaana la filayaa xilliga ka horeeya inay dhici karayso in wax isbedelaan laakiin waxay ku xiran tahay sida arrimuhu ay noqdaan markaas waxa kale oo iyaguna hadday qaar kamid ah professorada iyo dhaqaatiirtu ay kamid tahay haweeneyda ka tirsan qoliyaha caafimaadka England Dr Susan Hopkins iyo waliba dhaqaatiir kale iyo waliba ninka isagu madaxda ka ah hay'adda lagu magacaabo Wellcome Trust oo ah Sir Jeremy Farrar oo iyaguna ka dhawaajiyay in dadaal xoog leh oo la wado iyo tallaaladu ay wax tari karayaan laga maarmaana ay tahay in la feejignaado oo la dadaalo marka laga hadlayo guud ahaanba arrimaha UK marka la fiiriyo maalmihii ugu dambeeyay dhinaca tirada dhimashada waa ay soo degaysay iyadoo waliba dhinaca soo ridashaduna ay soo degaysay maxaa yeelay qoliyaha caafimaadku waxay aaminsan yihiin haddii tirada dadka cudurka laga arkaya ay yaraato dhinaca dhimashadana inay yaraan karto marka daba la fiiriyo maalmihii ugu dambeeyay oo laga soo bilaabo maalintii jimcihii ee la soo dhaafay dadka lagu sheegay in UK guud ahaanba dhinteen 1245 laakiin maalin qura ma dhiman maalmo ka horeeyay tirooyin kale oo laga tagay ayaa lagu daray sida ay warbixintu sheegayso maalintii sabtidii waxaa la arkay ilaa iyo 1200 oo qofood inay guud ahaanba dhinteen maalintii axadii hoosay u dhacday kala bar iyo ka badan oo waxa ay noqotay 587 ruux inay dhinteen maalintii shalay oo isniinana waxaa tirada dhimashada lagu sheegay 406 halka waxaa ka muuqanaya tirada dhimashadu inay hoos u soo degaysay iyadoo waliba shalay la arkay dadka cudurka laga arkay oo isniina inay guud ahaanba ahaayeen 18607 ruux taasoo ah tiradii ugu yarayd marka la fiiriyo toddobaadyo la soo dhaafay maxaa yeelay tiradu toddobaadyo hore waxa ay gaartay ilaa iyo 60,000 iyo dheeraad maalintii taasoo ahayd fajiciso iyo ka yaabiso marka haddaba la fiiriyo guud ahaanba UK waxaa ka dhintay cudurka coronaviruska maalintuu bilowday ilaa maalinka maanta ah 106,000 iyo waliba 564 ruux
wararka ka imanaya dhinaca midowda Yurub waxa ay sheegayaan midowda Yurub inay ogolaadeen jimcihii la soo dhaafay AstraZeneca talaalkeeda oo muddaba la sugayay. reer Yurub heshiis hore ayay la galeen dhowr bilood ka hor AstraZeneca iyo Oxford talaalka ay soo saareen oo ah inay malaayiin dalbadeen la doonayay in la soo hormariyo oo la keeno, laakiin muran xoog leh uu jiray oo dhex maray sharikadda AstraZeneca iyo Oxford talaalkooda iyo weliba reer Yurub hogaamiyayaashooda, iyagoo sheegay in AstraZeneca ay sheegatay arrin ay tiri dhinaca soo saarka ayaa nagu yaraaday, taasina suurtagal maaha ballankii aan la galnay reer Yurub inay markaasi ay halkaa ka fuliyaan. laakiinse maamulayaasha reer Yurub arrintaasi aad ay u dhaleeceeyeen oo waxay sheegeen inaanay qumanayn iyadoo ballan la galay in ballantii laga baxo sidii la rabana aanay noqonin. laakiin hogaamiyayaasha AstraZeneca oo ugu horeeyo ninka isagu madaxda ka ah sharikadaasi ee lagu magacaabo Pascal Soriot ayaa waxa uu ku doodayaa reer Yurub dhinaca ogolaashaha inay dib u dhigeen oo ay gaarsiiyeen ilaa iyo marka la fiiriyo dhammaadka bisha January, halka wadamada sida UK oo kale ay mar hore AstraZeneca ay ogolaadeen. AstraZeneca boqolkiiba 60 ayay ka gaabinaysaa ballantii ay la gashay reer Yurub, laakiin reer Yurub wadahadalkii ay wada galeen kadib waxay ku ballameen ilaa bisha Maarch oo ah bisha saddexaad AstraZeneca iyo Oxford talaalkooda inay intii la rabay ay gaarsiiyaan dhammaan reer Yurub. arrintaas iyada ah ayaa waxa ay keenaysaa in reer Yurub ay codsadaan si gaaran ay u codsadaan AstraZeneca iyo Oxford talaalkooda in laga rabo midka UK ay ka soo saarayaan, maxaa yeelay AstraZeneca waxa ay ku leedahay meelo kale oo markaas ay ka soo saarto talaalka sida waddanka Holland iyo waddanka Belgium. laakiin arrin kale ayaa jirta oo ay ka dhawaajiyeen maamulayaasha reer Yurub oo ay sheegeen in la xanibayo marka la fiiriyo wadamada reer Yurub talaalada ay soo saaraan ee dibadda la geynayo. arrintaas ayaa waxaa ka dayriyay wadamada qaar iyo weliba laanta jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa ugu qaabilsan dhinaca caafimaadka ee WHO oo sheegtay inaanay qumanayn in talaalada la xanibo oo ay tahay lagama maarmaan talaalada reer Yurub laga soo saaro in la geeyo goobaha loogu talagalay iyo cid kastoo markaa heshiis ay wada galaan. haweeneyda iyadoo qaabilsan ganacsiga dhinaca dibadda ee waddanka UK ayaa waxay shaaca ka qaaday inay ka hubisay hogaamiyayaasha reer Yurub inay u ballan qaadeen ra'iisul wasaare Boris Johnson talaalada ka imanaya dhinaca Yurub ee imanaya dhinaca gudaha waddanka UK in aan lagu xirin dhinaca markaas xuduudda, maadaama England amaba UK ay ka baxday midowda Yurub intiisa kale, taasoo ballanqaad reer Yurub ay sameeyeen. haweeneyda madaxda ka ah midowda Yurub Ursula von der Leyen ayaa waxay shaaca ka qaaday in laga heshiiyey wax kasta oo laga murmay AstraZeneca iyo weliba dhinaca midowda Yurub, iyadoo weliba jimcihii la ogolaado hay'adda dhinaca daawooyinka ugu qaabilsan reer Yurub ee qalinka ku duugtay AstraZeneca iyo Oxford talaalka marka ay soo saareen reer Yurub in la geey karayo. marka la fiiriyo waddanka Algeria oo kamid ah wadamada Carbeed ee ku yaal dhinaca waqooyiga qaaradda Afrika ayaa wadahadal waxa uu la yeeshay sharikadda lagu magacaabo Sputnik V ee dalka Russia, taasoo ay ka ballamayeen qaabka iyo sida ay uga heshiin karaan in Algeria ay talaalka soo iibsato oo markaa laga adeegsado dhinaca gudaha waddanka Algeria. wadahadal ayaa waxa uu dhex maray ra'iisul wasaaraha waddankaasi Algeria iyo safiirka Russia ka fadhiya waddankaasi oo ay labaduba ka wada hadleen qaabka iyo sida Sputnik V oo ah sharikadda Russia ay talaalka ku keeni karayso inta doose loo baahdo marka la fiiriyo waddanka Algeria. waxaa wararku ay sheegayaan Algeria inay heshay ilaa iyo 500,000 oo ah ilaa iyo 500,000 oo doos oo ah sharikadda Sputnik V ee Russia talaalkeeda oo durbadiiba lagu bilaabay qaybo kamid ah waddanka Algeria. reer Algeria waxa kale oo ay dalbadeen talaalna ay ka dalbadeen sharikadda lagu magacaabo Sinopharm ee waddankaasi Shiinaha oo iyada lafteedana ay ka iibsanayaan. waxa kale oo reer Algeria ay shaaca ka qaadeen maamulayaashooda caafimaadku in ay dalbadeen AstraZeneca iyo Oxford talaalka ay soo saareen oo iyagana doosas malaayiin ay markaasi ka sugi doonaan. dowladda ka dhisaalan waddankaasi Algeria waxay ugu tala gashay adduun dhan 122 milyan oo euro in lagu xasiliyo oo lagu soo iibiyo talaalada kala duwan iyo sharikadahaas heshiiska lala galay si loogu talaalo guud ahaanba bulshada reer Algeria oo lagu sheego iminka ilaa iyo 40 milyan oo ruux. madaxweynaha waddanka Algeria Abdelmadjid Tebboune ayaa isagu cudurku uu ku dhacay dhowr bilood ka hor, taasoo keentay in loo duuliyo waddanka Jarmalka oo lagu soo dabiibo, kadibna isagoo ka bogsooday uu ku soo laabtay waddankaasi markaa Algeria. waddanka Argentina wararka ka imanaya waxa ay sheegayaan senatarada dalkaasi inay u codeeyeen oo ay qalinka ku duugeen dadka joobkooda buuran yahay ee reer Argentina in lagu qasiro inay dhiibaan canshuur dheeraada, taasoo ujeedku uu yahay lacagaha ka imanaya in la siiyo dadka markaas liita iyo weliba dhinaca waxbarashada iyo ganacsiga joobkooda aan u buurin in kor loogu soo qaado cudurka coronavirus-ka awadii.
senatarada reer argentiin ayaa cod ay qaadeen aqlabiyad buuxda waxay ku oggolaadeen lacag badan oo markaas gaaraysa ilaa iyo 3 bilyan oo ah dollarka Mareykanka in ay soo xaroon doonto marka la soo ururiyo dadka reer argentiin ee iyagu haysta qofkiiba lacag ka badan 2 bilyan iyo 300 oo milyan oo dollar ayaa waxaa laga doonayaa in markaas lacagta laga qaado marka daba la tiriyay dadka ganacsatada ee joobkooda buuran yahay ee reer argentiin ee heerkaasi gaari kara qofkiiba waxay noqdeen ilaa iyo 12,000 oo ruux taas oo la sheegay lacagta ka iman karta inay dhantaa ilaa iyo 3 bilyan oo dollar oo markaa lagu qarash garaynayo guuda baahiyooyinka kala duwan ee ka jira waddanka argentiin madaxweynaha waddankaasi Alberto Fernandez ayaa waxa uu shaaca ka qaaday talaabadani inay tahay mid lagu taageerayo ganacsiga iyo guud ahaanba dhaqaalaha hoos u dhacay taasoo ay markaas ee dusha ku tuurayaan ragga iyagu mucaaradka oo iyagu ka soo horjeeda dawladda Fernandez oo sheegay in arrintaasi aanay ahayn mid quman oo lacagtaasi ay tahay mid aan la malayn karin halka loo adeegsan doono laakiin dalka argentiin waxa uu ka mid yahay wadamada fakhriga ah ee cudurka coronavirus-kuna saameynta xoog leh uu ku yeeshay taasina ay keentay dadka reer argentiin ee cudurku uu ku dhacay inay ka badan yihiin 2 milyan oo ruux dadka uu ka dilay argentiin cudurka inay kor u dhaafeen 47,000 oo ruux ugu dambeystii marka la fiiriyo dalka Hindiya oo kamid ah wadamada saameynta xoog leh uu ku yeesho cudurka oo ah dalka labaad ee ugu soo ridasho badan dhinaca kalena dalka saddexaad ee ugu dhimasho badan ayaa markii ugu horeysay muddo 8 bilood ah waxaa dib loo furay khadkii tareenada ee isaga gooshi jiray magaalada buuxshareeda Mumbai ee waddankaasi Hindiya arrinkaasi ayaa waxaa lala xiriirinayaa in loo arkay iminka magaalada Mumbai iyo hareeraheeda cudurka coronavirus-ku inuu hoos u dhacay taasina ay keentay in tareenada oo muhiim u ahaa magaaladaas dib loo bilaabay iyadoo weliba la sheegay dadka maalin walba tareenada Mumbai ku safra in lagu sheegay inay ka badnaayeen hadda waa maalin walba ogow ilaa iyo 8 milyan oo ruux maamulayaasha caafimaadka ee magaalada Mumbai iyo kuwa India waxay sheegeen in nidaam cusub lagu soo rogay dadka raacaya tareenada Mumbai oo la sheegay in sankii afku u xiraanayo isla markaasina isteeshinada laga sameeyo goobo lagu eego heerka qofka markaas kulkiisa oo la eegayo sida xaaladiisu ay tahay waddanka Hindiya waa waddan dhibaato xoog leh cudurka coronavirus-ku uu gaarsiiyay laakiin toddobaadyo ka hor ayay waxay bilaabeen talaalkii ugu ballaaraa adduunyada ee dhinaca cudurka coronavirus-ka taasoo uu sheegay ra'iisul wasaare Narendra Modi in qof walba oo reer Hindiya la talaali doono oo markaas dadka India lagu sheegay inay yihiin kuwa labaad ee adduunka ugu badan oo tiro ahaan ah 1 bilyan iyo 300 oo milyan oo ruux guud ahaan adduunyadu walwal xoog leh ayaa ka jira marka la fiiriyo fayrasadan cusub ee soo faafay iyo xaalku sida uu yahay iyo talaaladii oo dhinaca kala socda waxaa markaa la eegi doonaa qaabka iyo sida ay wax noqdaan iyadoo weliba kuwan dambe xawligoodu aad iyo xagga faafitaanka iyo weliba dhallinyarada marka la fiiriyo si aad ay u qaadi karayaan laakiin kii wahaan dhallinyarada aanu ku dhici jirin inta badan ee uu ku dhacaya dadka da'da 70-aadka iyo 80-aadka waxaa daba la eegi doonaa qaabka iyo sida ay wax noqdaan dadaalada dalalka adduunka sida talaalka loo daabulayo wadamada jeebka buuran oo durbadiiba bilaabay kuwa jeebkoodu aanu fiicnayn oo iyaga laftooda dadaallo xoog la wada in la gaarsiiyo iyo arrimo badan oo la doonayo in looga gaashaanto cudurkan adduunka aafeeyay sanadka iyo ka badan fariintan waa fariintii toddobaadkii 2 maalmood aad heli jirteen maanta oo kale oo talaado ah iyo maalin walba oo jimco ah haddii Allah uu dalay oo ogolaado marka hadaba aynu fiirino fariinta waxaa fududeeya sharikada dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliya guud ahaanba la geynayo lagana keenayo waa sharikada lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmar Barqadle iyo weliba iyadoo halkaas laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka hadda sidii haddii lagu keenayo intaba ganacsade Axmed Barqadle waxa kale oo bulshada u haya guud ahaanba telefoonada noocyada kala duwan ee kuwa ugu dambeeyay iyo cunooyinka kala duwan waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949528777 dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba dhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhowaan yaana kuu soo dhowaan yaana isu soo dhowaan aan kala fogaano baryada eebba aan badina nadaafadana aan ku dadaalno maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga Universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronavirus oo idin leh
annagoo kariimkeenna kaashanayna kaalinteena aan ka qaadano ka hortagga coronavirus ma sha Allah